shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob mid waxa waaye sida la socotiin madaxweynaha wuxuu hadal jeedin ka sameeyay baarlamaanka oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo wixii soo qabsoomay arinta labaadna waxay ahaaday kulamadii dhacay gudoonka baarlamaanka iyo madasha dhexmaray iyo xaaladda dalka iyo doorashooyinka marka hore waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinka ugu dambeeyay waxa la xaqiijiyay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan in doorashada xilligeeda lagu qabto doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto waa guul dadka Soomaaliyeed u soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arintaas madashu iyadoo taas ka duulaysa waxay aaminsan tahay in laga maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raali laga yahay natiijadeedana qof walba Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu fuliyo sidaas darteed madashu waxay ka digaysaa muddo kororsi magac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda si taas loo gaaro waxa laga maarmaan wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhamaantood ay ka wada qayb qaataan dawladda xubnaha ka ah ama dawladaha xubnaha ka ah maxaan ku yiraahdaa dawladda dhexe ay ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhamaantood taas si loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni xasilooni iyo wada tashi waxaan soo dhaweynaynaa maanta go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh loo baahan yahay xilligiisa yimiday waana soo dhaweynaynaa sidaas oo kale wada shaqaynta labada aqal ayadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhamaystirkeedana si wanaagsan oo wada jira loo wada shaqeeyo sida la socotiin madasha xisbiyada qaran waxay aad ugu hawlaneed in xiriirka dadka Soomaaliyeed u dhaxeeya ama ha noqdaano dawladda dhexe siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dawlad goboleedyada in la xoojiyo taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wada jirka ummadda Soomaaliyeed inuu si xoogaysto loona diyaar garoobo marxaladda la joogo marka aanu gudbo khudbadii madaxweynaha runtii waxa la filayay in laga hadlo mustaqbalka iyo doorashadu sida ay noqonayso mar walba waxa lagu soo celcelinayay sida aad arkayseenba doorasho xur ah ama doorasho one man one vote inay dhacayso madashu waa soo dhaweynaysaa doorasho one man one vote laakiin waxa isweydiinaysaa goormay dhacaysaa saas ay u dhacaysaa su'aashaas ay isweydiinaysaa wali ma cadda maxaan ku yiraahdaa marka la fiiriyo amni ahaan inay suuragal tahay siyaasiyan inay suuragal tahay dhaqaale ahaan inay suuragal tahay bulsho ahaan inay suuragal tahay bilcagsi waxaan qabnaa hay'adihii ka wada tirsanay dawladda dhexe oo ay ka mid yihiin dawlad goboleedyada inay si kala fogaanayaan oo ay suuragali weysay kulankii la rabo inuu dhex maro dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka taasoo muujinaysa waxa la sheegayo wax ka duwan marka laga hadlo amniga waxa la socotiin dalkan amnigiisu wuxuu soo maray heerar kala duwan maanta ma huba inuu jiro amni xoogan oo la isku halay karo oo qof kasto Soomaaliya uu dhihi karo amni la isku halay kara ka jira meel walba waxa la dhigay dhagax dariiq kasta waa la xiray dawladdu waxaad moodaa inay ku soo aroorayso meelo kooban arintaasuna waxaan isleenahay waxay ka turjumaysaa waaqic ka duwan waxa dawladdu ay noo sheegtay marka la fiiriyo ciidamada Amisom iyo ciidamada dawladda iyo qalabeyntooda iyo dhaqaalaha ku bax iyo wax qabadkooda isla markaasna la barbar dhigo xilliyadii ka horeeyay
waxaad arkaysaa in wax qabad macnale oo san jirin ma dhaliilaayo ciidamada laakiin waxaan leeyahay waxaan jirin hanaan siyaasadeed oo keeni kara ciidamada dawladdu inay ka guuleystaan ay ciidamada AMISOM inay ka guuleystaan maxaan ku yiraahdaa cadawga al-shabaab mana noo muuqato dagaal dawladdu ay kula jirto ciidamada al-shabaab oo cadawga ah oo runtii mar walba u taagan inay dadkan dhibaateeyaan waxaan rabaa wax yar inaan jaleeco waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM oo dawladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dambiyo arintaas waa arin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada AMISOM keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada AMISOM waxay sameeyeen sacrifice waxay sameeyeen dadaal fara badan waxaan rabnaa inaan sumcadooda lagu ciyaarin la dhaawacin kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ku qabaan aan la dhibaataynin waxaan aaminsanahay ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawladdu iyo ciidamada kale oo kaalmeeya oo u jooga tababarada inay ku filan yihiin cadawga inay ka xoreeyaan sidaas darteed golaha amniga UN-ka African Union waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdeg ah looga saaro dalka falalkii ay geysteenna lagu xisaabiyo oo sharciga loo keeno waxaan rabaa inaan uga gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad xur ah run waaye maanta in la kaalmeeyo u baahan yihiin laakiin waxa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raali laga yahay dadka Soomaaliyeed inay xur ahaadaan ka soo kabtaan dhaawacii qarannimadooda soo gaaray waxaan maqalnaa mar walba ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadla arrimaha Soomaaliya Itoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah ilaaha ma taqaana daris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay laakiin erayada ra'iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dawladana kama maqalno waxaan jeclaa lahayn in dawladdu ay noo fasirto madaxweynuhu inuu noo fasiro maxaa socda waxaan maqalnaa wax la yiraahdo isdhexgalka geeska Afrika maxaa loo jeedaa waxaan maqalnaa in dekada la bixiyay maxaa loo jeedaa marka wax la bixinayo dawladda waxa la rabaa inay marsiiso process madaxweynaha kama bilaabato waxay ka bilaabanaysaa golaha wasiirada waxay aadaysaa aqalka sare aqalka golaha shacabka aqalka sare kadib ayay ku tagaysaa madaxweynaha inuu dekreeto ku soo saaro sovereignty-ga Soomaaliya waa wax qaali ah dad u soo dhintay dad u soo dhaawacmay xoolaha lagu bixiyay annaga iyo walaalaheen Itoobiya mugdiyaana dhex yaalla taariikh madoobaana dhex taalla hadiiba ay dhab ka tahay walaalaheen inaan wax wada yeelano aan wada hadalno 2007 aan ugu dambeysay 2008 aan ugu dambeysay halkan dad lagu laayay dad ku dhintay Soomaaliyeed ciidamada soo duulay waxa la iska ma dhihin iskaashiga dhex maraya Soomaaliya Itoobiya Eritrea kaliya oo dawladaha kale oo Afrika ama geeska Afrika dhex mareenin macnihiisu muxuu yahay waxaan rabaa halkaas in aan uga gudbo dawladaha marka iskaashi dhex maraya political ahaan structure-kooda waa inuu isu dhow yahay Eritrea waa dad walaalaheena aan jecelnahay xurnimadooda dadka Soomaaliyeed ka soo qayb qaateen aniga idan hor fadhiya muddo aan soo joogay gacan ka geystay maxay ahayd waxyaabaha qaar gacan ka geystay laakiin maalintii ay xurnimada qaateen ilaa hadda doorasho kama dhicin annagana waxaan rabnaa 4 sano doorasho inay dhacdo maxaana kulmi kara ma sheegi karti waxaana kulmi kara maxay noqon karaan inaan isku darsano xalaal waxa la quutaa maalin cad heshiisaan ogolnahay in la wada hadlaan ogolnahay in walaalo la hadaan ogolnahay laakiin waxaan rabnaa horta koow inaan xaqiijino inaan nahay laba dal oo darisa oo colaad u dhaxay fahamsan waxa u dhaxeeya inaan ahaana u baahannahay intaas waa inta ku aadan integrationka iyo ciidamada aan ka mid ka ahayn AMISOM
walaalaheen Afrikaanka iyo dawladaha donoriska iyo dawladaha saaxiibada ah gacanta weyn ka geystay Soomaaliya inay meeshan soo gaarto aadan ugu mahad celinaynaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa UN-ka iyo African Union laakiin waxaan leenahay mugdiga shacabka Soomaaliyeed waa qabaan waxaana u baahan yahay in la address gareeyo arinta integrationka waxay u baahan tahay banaanka in la soo dhigo ra'iisul wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo isku dal aan noqonaynaa marka isku dal intaan aan naqanin waxa fiican annagoo laba dal intaan wada hadalno oo mashaakilka dhexdeena ay ka heshiino kadib inaan gudubno waxaan rabaa inaan u gudbo hanaanka dawladnimada Soomaaliya waxaad ogtihiin wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wuxuu marayaa marxalad xasaasi ah haddaan la helin political stability haddaan la helin wada hadal haddaan la helin isfaham sharciga waqtiga loo asteeyay hay'adaha dastuurigaana oo dhamaado maxaa ka dhici doona dalkan yaa yaqaan mugdigaas iyo walwalkaas waxay keenayaan xasoolin darro waxaan xoojinaynaa baahida loo qabo wada hadal dhaba oo laga galo arrimaha doorashooyinka waxaan muujinaynaa dhinaceena inaan diyaar u nahay in laga wada hadlo cid kasta oo mataqaana muhiim waa wada hadalkan ay ka qayb qaadato loona diyaar garoobo wada hadal wanaagsan oo keeni kara horumar qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan ka hadlo waa qodobka xisbiyada dalkan muddo dheer waxa ka socday oo lagu soo socday 4.5 xisbiyada asbaabta loo sameeyay inay hanaan cusub oo siyaasi ah oo dalkaanuna ku horumari karo ummaddu isku raaci karto inay keenaan waqti badan lagu bixiyay axsaabta iyo siyaasiyiinta ka qayb qaatay iyo dadka Soomaaliyeed oo ku mahadsan yihiin juhdi badan lagu bixiyay waxaan rabnaa in dalkan uu u gudbo marxalad la isku doorto aragti siyaasadeed program siyaasadeed afkaarta siyaasigana waxay keenaysaa in ummadda Soomaaliyeed aysan u midoobin hab qabiile ay u midowdo hab siyaasi ah waana kan muhiimka ah waana bilowday marka waxaan rabnaa in la dhiirigeliyo dadaalkaas bilowga ah oo aan aaminsanahay inuu xalli doono mashaakil fara badan